warjalayaal soo dhawaada wallaahi caawa meeshii la iga saro dhiig kama imaanayo qof kasta oo mareexaan ah iyo qof kasta oo daaroodana waa ila mid waxa boorama ka socda ma fiirsan karno jalayaal waxaan rabaa inaan fariin u diro beesha mareexaan maadaama ay wada dhasheen mareexaan iyo samaroon sida ogtihiin mareexaan sade iyo samaroon sade iyo sade waa saddex nin oo walaalo ah xogtaasina anaa idiin sharaxayo waxaan marka codsanayaa si degdeg ah gurmadka ugu horeeya oo boorama gaara oo reer maaragtay samaroon gaara inuu noqdo gurmadka mareexaan weliba jifooyinka qolo walba taagtood ayaan rabaa inaan fariin ugu diro jifooyinka mareexaan waxaan idinka codsanayaa dhimashadu tirabeel ayay noqotay ilaa dhowr iyo 10 ayay sii gaaraysaa dhimashada beesha samaroon iyo shacabkii maaragtay reer boorame xaqiiqada jirta iyo waxa socdana inaan idiin sharaxaan rabaa beesha samaroon iyo dhalashadooda saxdaana inaan idiin sheegaan rabaa waxaan idinka codsanayaa jaalayaal meel kastoo aad joogtaan inaad muuqaalkan leegaraysaan youtube-kana ku soo biidhaan siina sheer garaysaan qof kasta oo samaroona noogu wac waxaan rabaa marka hore intaana faahfaahinta aanan guda gelin iyo barnaamijkeenna kale bal waxaad nala daawataan muuqaalada naxdinta leh ee laga soo duubayo magaaladii boorame rugtii cilmiga rasaas lagu wada furadhaco dariiqada ka kicina inigoo dhintaa fiican waryaa waa dhukan innagaale dhiiggaa layniga qaadiyo dhuka innigaale dhinta anu waan dhimanayaa imikadaaba dhimanaya irana annagaa wasnaa irana wasnaa mara isagu annagaa leh somaliland halkaa bay ku dhammaatay intaasaan uga gudbaynaa ilaa shalay iyo ilaa xalay magaalada boorame xasuuq baa ka socda xasuuqaasina waxaa loo geysanayaa shacabkii maaragtay reer boorame iyo shacabkii gobolka awdal deganaa ee samaroon waxaan rabaa inaan idiin sheego sida ay wax u socdaan magaalada saylac la yidhaahdo waxaa wada degan samaroon iyo niman la yidhaahdo ciise waa niman reer jabuutiyaan ah samaroonna waa awdal state oo waa niman halkaa degan magaalada saylac awal waxaa ku badnaan jiray nimanka la yidhaahdo ciisaha laakiin xilligan la joogo waxaa ku badan oo magaalada saylac 80% degan samaroon ayaan dhaweyto ciise waa ay yimaadeen waxay dabceen inay xeerkooda ku soo bandhigaan samaroon waa ka diideen laguma soo bandhigayay dheheen maamulka somalilandna way ku raaceen somaliland marka waxaa gacanta ku haysata oo maamul yaroo ay samaysteen ka dhigtay dowladda jabuuti odagii ciro ahaa waa la soo canaantay waxaa la yidhi saylac ciisa iskale sidoo kale waxaan kaa rabnaa inaad fasaxdid xeer ciise in xalfad loogu qabto saylac arrintaa xala markii ay soo saadhay maamulka somaliland oo ka shidaal qaadanayo jabuuti sidaa ogtihiin ayaantii hore oo reer laascaanood gaar ahaan dhulbahante iyo ay dirirayeen maamulka somaliland ay dirirayeen yaa dabada ka riixaya mataqaana ismaaciil cumar geelle fidna aan ismaaciil cumar geelle ahayn somaliland kuma dhex jidho iyo dadka soomaaliyeedba ma haysato ninkii madaafiicda dhiibahayey reer laascaanood in la xasuuqoo la dhibaateeyo ka shaqaynayey ismaaciil cumar geelluu ahaa maanta ninka ka shaqaynayo samaroon in la xasuuqo in dhibaato loo geysto in la barakiciyo in dhulkooda la qaato waa ninka jabuuti fadhiyo waa ismaaciil cumar geelle nimankan dowladda sheeganayo somaliland waa adeegayaal u adeega jabuuti waxaan leeyahay marka samaroon tol bay leedahay haddii shalay dhulbahanta tol lahaa oo tol hartiweyne la yidhaahdo uu lahaa samaroonna waa niman sada ah waa niman mareexaan la dhashay saa qof samaroona markii wax loo gaarsiiyo jirkoo dhan baa ay danqanayo sababtoo ah dhiig iyo dhalashaa naga dhaxaysa dadku taariikhda ma yaqaanaan samaroon
magacooda kale waxaa la yidhaahdaa gada biirsay waa niman gada ka yimid gada deganaa macnaha samaroon sade ah magacii sade waa la bedelay oo waxaa lagu bedelay siciid baa lagu bedelaa siciid iyo sadana wax badan isma dhaamaan oo xataa dadkaa isku qalda oo qofka siciid la dhaho sadana waa loogu wici karaa tusaale qofka mawliid ama liibaan magacyo badan oo isshabaha ayaa jira marka nimankan waa niman asalkoodu ay yihiin mareexaan waa niman asalkoodu ay yihiin sade oo curadkii daarood waxaan leeyahay marka beesha daarood iyo beesha sadeba inay u tafaxaytaan oo gurma degdeg ah in la gaarsiiyo walaalaheen samaroon inaan halkan laguma dhowran karo wariyaa dhowr kun oo askari ayaa magaalada lagu soo daadshay hooyooyinkii ayaa la dilayaa waxaa arkayay haween ilma xambaarsan oo rasaas lala dhacay oo ku nafbaxay ayagoo ilmahoodii sidaa ugu dhegan oo laga furfurayo baa arkaynay waxaan arkaynay dhallinyaro yar yar ah oo rasaas noolnool lala dhacayo ayaan arkaynay waxaan arkaynay maato la xasuuqay oo la dhaawacay oo isbitaallada loogu gelayo oo la dhibib tirayo ayaan arkay waxaasu dowladnimo maaha maantay maalin ay ka xun tahay oo ay diriri lahaayeen reer maaragtay reer awdal state ma jirto waxaan leeyahay ilaahay tirana waa idin siiyey tayana waa idin siiyey wixii laga diriri lahaa waa laydinku sameeyey wixii shalay laascaanood lagu sameeyey ayaa saylac iyo boorama laga samaynaya marka waxaan leeyahay dirira annaguna waa idin garab taaganna hiil iyo hooba waa idin garab taaganna waa idiin soo soconnaa na dhawra waxaan leeyahay beelaha mareexaan waa nimankan ma aha niman dira ciise iyo samaroonna ma wada dhalan isaaqna nimankaanu lama dhalan waa niman sada ah waa niman mareexaan la dhashay samaroon sadaa la yidhaahdaa halkaasay deggan yihiin si kale markii loo dhigana godobiirsay baa la yidhaahdaa waxaan idin leeyahay marka beelaha mareexaan wagardhac waxaa laga rabaa 200 oo wiil baa laga rabaa reer dalal waxaa laga rabaa 150 wiil baa laga rabaa reer siyaad ayagana waxaa laga rabaa 150 wiil baa laga rabaa reer ugaa sharmaake ayagana waxaa laga rabaa 150 wiil ayaa laga rabaa celi waxaa laga rabaa 80 wiil ama 100 wiil reer siyaa xuseen ayagana 100 baa laga rabaa nin waa gurmadka loo dirayo maaragtay magaalada boorame loo dirayo boorame waa magaalo mareexaan andhehe waa magaalo sade waa magaalo daarood waa in laga difaaco sharunshuurka iyo nimanka isku soo bahaystay wax Soomaaliland la yiraahdo ma jiro Soomaaliland hargeysa ka shaqeynaysa meeshaan awdal state weeye waana la iska dhicinaya waana la iska kaxaynaya haddii uu maanta ka shaqeynayo muuse in magaaladii saylac ay qabsadaan niman ciise ah oo Djibouti ka yimid adeer wax naga dhaxeeyo male wax Soomaaliland la yiraahdana ma jirto waxaan leeyahay marka qabiilada kale oo mareexaan talaxa waxaa laga rabaa 80 reer xasan 200 baa laga rabaa cali dheere waxaa laga rabaa 50 kiisa ilaahay hadduu kuu saba ogol yahay dhammaan mareexaan oo dhan reer walbe waxaa laga urmidig sidoo kale ayagana 50 baa laga rabaa jifa la isugu qorayaa ciidanka waana la dirayaa baabuur baa la saarayaa waata waxba nooma jiro war ma harti baanu ka liidanaa shalay harti walaalahood dhulbahanta u gurmadayeen gurmad bay u sameynayeen aan caadi ahayn war maxaanu mareexaan u dhowranaynaa xasuuqa walaalaheen samaroon sade lagu hayo maxaanu u dhowranaynaa dhammaan jifooyinka mareexaan ciidan baan ku wada qoranayaa dhammaan waxa looga baahan yahay qolo walba inay ciidan dirto war meeshaan Soomaaliland wax la yiraahdo ma jiro nimankaanu dir bay noqdeen ciise u hiilinayaan ciise iyo isaaq waa is wataan adeer ma samaroon ba ehil'aan ma samaroon ba tol'aan waa samaroon sadewe iyo mareexaan sade iyo facye sade hiil baa nagala rabaa
أذر شلي هرتوا حريستين ناس عانو سيدنا وحالة ربعين حرية بورمي إنه حريان بورمي يسيلع أيه سيدا لقربا ورشيف كهالغاكو وريان لفرديسان ودل يرد يدي يماتد يدي ويديك بحيان وأركتين ومقالدي ركت علمي هيد قروح ضبنايد هوين كيدي بالرساس للدعية شفوين كان مريحانو مدول بان عيدان كوغوري أذر صوت ديارية انتانا اقادا دادكو فيروا dad badan oo aan taariikhda iyo dadku wuxuu isku yahay iyo sida la isku xigo aan garanayn baa jira war samaroon waa niman mareexaan waa niman sada cid walba og ayaga og waraa qof samaroon ah haday wax ku dhacaan qofka mareexaan ma adkaysan karo hadda waxaan arkay mareexaankii baraha bulshada ku jiro dhan oo qaylanayo adar wala dhar jir isma qariyo dhiigu isma qariyo dhiig biyama midda kale waxaan leeyahay nimanka isaaq war ilaahay sadanu idin siiyay dad baad mas'uuliyiin u tihiin oo hogaaminaysaan shalay nimankii dhul bahantaad dhibaato ku samayseen aakhirkiina inaad kabiina ka caradhaan ayay sabab u noqoto maantana boorame ayaad ka samaynaysaan wixii aad shalay samayseen waad eedaysaa reer ka xaniye badan oo ka geesisan oo hadday dirir noqoto samaroon dagaal ooga adag wallaahi ma jirto war nimanku qalin bay wataan ونمانكو وافديان وربلايو فديده لا اسكوما سو جيديو ور وعدا لينان سمرون عان كعبين deegaanna inaan ka qabsanayn dhulkoodana inaan bixin karin nimanka faraha laga qaado xeerkaas aad sheegaysaan ma xeer munaasabad yar oo la qabanayo wax yar lagu soo gabagabeynay miya dad loo barakicinaya miya maata loo laynaya adeer Somaliland hal madaxweyne yeelanaysa laba madaxweyne ma yeelanayso Ismaaciil iyo Cirre hal mid bay noqonayaan haddii kale nin walba goofkiisa yarka asaga u tashanay وإذن سلام يا شاليال مقال كان ميل كست إيجا جارسيو إيجا شر جريا سوى كلام حنين كعد صنايا نمان كاس ريبو رمي الحسوقي وسود عي إني لهي جوليو أنت دمتى أو نبكاسكو مارتي وحيي اللودين إني لهي أبوغ